السلام عليكم walaalahayga qaaliga waa idin salaamay meel walba adduunka joogtaan waxaan idin rajaynaa caafimaad insha Allah maanta waxaan sameysanaynaa digaagad xabad weyn oo digaagadan haysanaa inta waxaan ku haysanaa xawaash barbarooni shiidan filfil xawaash kale oo xawaash dhudhuub liin dhanaan shiishid afar xabo toon yoogad saliid iyo cusbo intaas maxaa la dhahaa waxaan sameynayaa waxa dhan waxaan kusoo wada shubayaa qalaadada baasha yariista wax lagu shiido aan ku shubayaa yogadkan ku daray laba qaad yogada ku daray waxaan kaloo ku dari doonaa saliida wax dhan meesha ugu wada shubayaa marka ana oo maxaa la dhahay wax yar yaan shiishiina haystay waxaan soo xasuustay inaan yaanyo kala haysto dib ugu dari doonaa yaanyadaas liinta ma ku wada miirayo wax xoogaa yaraan ku miira xabad dhan ma ku wada miirin wax yaraan ka reebay saliidiina ku shubay yaanyadana marka soo xasuustina ii taalo hadaa yaanyo shiishid haystin yaanyo shiida ku darsan kartaa hadaa haysanin waxaa ku darsan kartaa yaanyadan diyaarsan hadaa haysatid hadii kale yaanyo shiishida iska isticmaali kartaa marka waxaan sameeyay waxa dhan waa isku soo dardaray waa isku soo shiiday toontii waxa dhan waxaan rabaa inay isku shiidmaan kadibna aysan wax oo kuus aysan yeelanin waxa dhan waa soo shiiday chickenkan kareem amal u soo marnaa gudaha ilaa banaanka markaan aad waxa dhan waa soo shiiday oo soo diyaariyay macal cusbada xataa waa ku daray waxa dhan waa isdhexgaleen saas isku noqdeen waa ku rugayaa gudaha ilaa banaanka maqaarka gudaha ee jildiga oo ka galaal rabaa chickenka markaas waxaan waa toontii iyo wixii dhammaan inay gudaha ka gasho kor kaliya hadaa ka marisid oo gudaha igu jiro faa'iido malaha ilaa gudaha ka marinayaa maqaarka inta u dhaxayso adoo maqaarka ka fiiqaynin caadi u marinaysaa kadib waasana diyaar waay waxbaan waa daboolayaa waxbaan ku xirayaa waxaa gelinayaa talaagada saacad camal maxaa la dhahaa ay yeelaysaa batara meesha ku digsiga bariiska ku samaysanaa kan jab yar oo batara subag aan ku soo shubay kadibna basashii aan ku shubay laba xawaash oo kala nooc ah meesha ku haystaa filfil iyo xawaash dhudhuub ama xawaash burbur inta bariiskan ku samaysanaa jirinka waxaan rabaa inaan gudaha bariis ugu xasho يعني ugu shubo gudaha bariis ugu sameeyo marka waxaan soo sameynayaa basasha guduudinaya bariiska oo ii dhaqan oo ii diyaarsan yahay waxaan ku sameyn doonaa bariiska meesha waxaan ku guduudinayaa biyana waa karkarsanaa si diyaarsanaa biyaha insha Allah bariiska waa kana ku shubay bariis waxa fiican bismatida fiican hadaa haysatid marka bismati ma yeelin kan kala iyaalay kan kala iska isticmaalay marka waa kana xawaashka ku soo shubaya iyo kabs maxaa la dhahay filfishi labadaas xawaash iyo maraq digaag ku dari doona insha Allah iyo cusbo bas marka waxaan sameeyay biyihii aan soo diyaarsanaa cusbadii ku soo darsaday jab hal xabo maraq digaagna ku daraya hal xabo maraq digaag aan ku daraya iyo xawaa dhadhan u yeesho biyo kulul aan ku shubay biyo soo karkarsaday biyaan ku shubi doonaa marka waxaan sameynayaa biyaha ma ka buuxinayo biyaha wax yar aan sameynayaa aan kor ka soo marinaa bariiska bas bariiska wax yar oo ka soo kormar bas aan rabaa bariis jilaac ma ka rabo waxaa ka rabaa inuu adii 75% inuu bislaado la rabaa inta kalena wuxuu ku dhex bislaanayaa chickenka bariiska waa kana hadda xoogaha si fiican ma bislo waa ka guranaya 5 qaado camal 4 qaado camal ka qaadanaya oo waaweyn 4 qaado waaweyn ka qaadana waxaan rabaa inaan maxaa la dhahay digaaga dhexda u galiyo inta kalena maxaa la dhahay oo ceerinkay wax yar biyo kulul ku darsan biyo ku darin dab kale u gaabiyo saas ka bislaanayo digaaga waxaan rabaa marka inaan gudaha ugu guro kana kadibna meeshaas hadarta waa ka tolay hadartina aniga waxaan ku sameeyay keedka oo ilkaha lagu babaxsado ii yaalay aan ku waxayna hal xabo basal aan soo goostay waxaan gelinayaa gudaha oo ka gelinaa bariiska inaan ka badato ma fiicno bariiska inuu ka babato oo ka dadaato lama fiicno bas afka hore dhuurkana oo ka duleela chickenka oo ka duleela meeshaas dambana calooshii wixii laga saaro way banaan tahay inaad ka badato bariiska lama rabo oo ka daato bariis iyo qiyaas ku shubeysaa xoogaa qiyaas ku shubeysaa ana 4 qaado camal ku shub mana ka daadanayo waa okay waa marka qorigaas aan gelinayaa qoriga ilkaha lagu babaxsado waaye
oo igu dheeraado waan iska jarayaa mid kalena dhinaca kalean kasoo gelinaya ma daadanayo marka bariiska waa kana bahalka jikinka waa kana waxaan sameynayaa marka bacdan aluminiumkan hoosa ku fidiyey bacdi kalena korkan ka saaray hal xabac kalaan kusii duubayaa waxaan gelinaa foornada hoosaan geliyey waa kana hadda saan uu noqday bacdan ka furayaa meesha koraan u daaraya si uu u gaduuto waa kana hadda uu soo gaduutay diyaar waa marka waa kasoo saara waa kana saan uu noqday saacad wuxuu ku jiray saacad iyo bar camal uu ku jiray markuu saacad iyo bar faraha ka qaaday saas uu noqday guduud kor iyo hoos wuxuu noqdaan ku dhahay maasha allah guduud gudahana wuu bisil yahan ku dhahay waa kana diyaar waay saas uu diyaar ku yahay waan jeexaynaa insha allah hoosna maxaa la dhahay hoos saan u gadinaynaa waa jeexaynaa bariiska iyo wixii dhan aan arkaynaa soo noqday hadda meesha ugu koreysa waaye waa kana hadda waa jeex dhinac kale u gadiyey dhinacan foornada meesha kore maba gaarin hoos le bes hoosay ku bislaatay saas ku noqotay guduud ku noqotay dhinac kale kasii aada u guduudan meeshaan okay waa iyadana bariiskii waa kana waxyar qudaar yar oo iskaga habeeyey gudaha waa kaka bariiska waa bisil yahan ku dhahay basashiyaan dhex dhigay basasha carafay u yeelaysaa waxa u dhex dhigay basasha hoogaha way carfinaysaa maadaama aanan jikinka wax basal iyo aanan ku sameynin gudaha waxay ka siinaysaa dhadhan iyo caraf u sameynaysaa marka saas diyaarku ay u tahay assalaamu calaykum